hadda Soomaaliya waxaa joogtaa maalmo kooban tan iyo markii aad bilowday adigoo ambassador ee Soomaaliya ka howlgashid waxaabihii ugu waaweyn aad la kulantay ilaa hadda waxaad ku tilmaami kartaa wax qabadkaagina maxaa lagu qiimeyn karaa mudane ambassador waxaan si rasmi ah dib uga shaqo bilownay Soomaaliya 3 December 2018 marka waa waqti aad u gaaban waxaan xirnay safaaradeena bishii January 1991 marka shaqo badan ayaa inoo taala oo ay ahayd in aanu qabanno rajo fiican ayaan qabnaa haddana waxaan raadinaynaa baahida dadka Soomaaliyeed ay qabaan iminka waxaynu doonaynaa in baahidaasi aan wax badan ka qabanno gaar ahaan dhanka waxbarashada waxaan qornay 20,000 sanadkii tagay waxaan doonaynaa in tiradu ay gaarto 150,000 oo waxbarashada carruurta waxaan raadinaynaa qaab shaqo loogu abuuri lahaa dad badan waxaanu abuurnay 1,700 oo shaqooyin ah waxaan rabnaa inaan u gaarsiino kumanaan iyo kumanaan waxaan wax ka qabanaynaa barnaamijyada caafimaadka oo aan xoog ku saareynaa kuwa kale oo ah kuwa shaqo abuur ah xaqiiqdu waxay tahay waxaan rabnaa inaan shaqo abuur samayno meelaha ay ka mid yihiin beeraha kalluumaysiga warshadaha iyo xataa xoolaha nool sida aad la socoto sanadkii hore waxaan ka wada hadalnay oo hirgelinay 3,500 oo litir oo caano ah maalin kasta dalka Mareykanka waxa uu hogaaminaya madaxweyne Donald Trump maxay tahay aragtida Donald Trump oo Soomaaliya ka qabo iyo howlaha uga qorshaysan taasi waa su'aal wanaagsan Soomaaliya waa muhiim maxaa yeelay nabad laga helo Soomaaliya waxay dan u tahay Ethiopia Kenya iyo wadamada dariska ah si kalena xasilinta wadamadaasi waxay dan u tahay Soomaaliya waxaan doonaynaa waa in la helo iskaashi gobolka ah oo iskaashadaan Eritrea Djibouti Ethiopia Kenya iyo Soomaaliyana waa meel muhiim ah sababtoo ah waxay leedahay xeebta ugu dheer inagoo taas maskaxda ku hayna Afrika way sameyn kartaa $100 milyan oo dollar waa hadii la midoobo oo la mideeyo dhaqaalaha taasina macnaheedu waxay tahay in dadka oo dhan shaqooyin ay wada helaan adigoo ka hadlayay golaha sanadka dalka Mareykanka gudiga u qaabilsan umuraha dibadda waxa sheegtay in aad ka shaqeyn doonto ay ka go'an tahay dil uu ansixiyo oo Congress-ka Mareykanka ama sanadka uu ka ogolaado in aad ka shaqeyn doonto danaha Mareykanka ilaa hadda maxaad ka qabatay danaha Mareykanka iyo tan Soomaalida labadaba danaha istiraatiijiyad ee dalka Mareykanka waa inaan xaqiijino badqabka iyo ammaanka nabadda iyo sidoo kale horumarka dhaqaale maxaa yeelay kuwaani waa nidaam muhiim ah oo Soomaaliya loogu raadin karo horumar dhanka dhaqaalaha ah waxaan hadafkeenu u yahay waan isleenahay waxaad ku taagantihiin jidkii lagu guuleysan lahaa mana ah safar laga sugayo oo kaliya Mareykanka ee waxa la doonayaa dadka Soomaaliyeed iyo hogaamiyaasha la doortay in ay wada shaqeeyaan oo ay ka shaqeeyaan mideynta iyo inay si dhow ula shaqeeyaan dawlad goboleedyada iyo dawladda oo dhinaca kale in la caawiyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhanka waxbarashada iyo in la tayeeyo caafimaadka si mustaqbalka fursado badan loo abuuro kuwaas oo aqoon ku guuleysan karo waxaan aad u rajaynaynaa inaanu taageeri doono dhammaan arrimahaas iyo wadooyinka lagu guuleysan karo marka la fiiriyo shaqadaada Soomaaliya ka qabanaysay waxa waaye inaad ka shaqeysid dhanka nabadgelyada xasilinta Soomaaliya kabashada dhanka dhaqaalaha gargaarka bini'aadanimada sidee rabtaa marka inaad shaqooyinka faraha badan ee hadda ku xusan inaad Soomaaliya ka qabanayso sidee rabtaa in kala hormariso waxaan ku hoolanaa laba meel oo muhiim ah ammaanka iyo badqabka ayaa aad xasaasi u ah oo kaliya Soomaaliya ma aha laakiin waa dhammaan wadamada oo xitaa Mareykanku uu ku jiro sababtoo ah haddii aad haysato dad raadsanaya dhaqaalahooda taasi waxay keenaysaa fursado shaqo oo horumar laga sameyn karo marka aad horumar samayso taa waxa tahay qof dhameystiran marka dawladda Mareykanku waxay dhawaan soo saartay iyo qaramada midoobay report ku saabsan in falalka xagjirnimada ah badankood ay yihiin kuwa ka yimaada dhanka shaqo la'aanta sidaa darteedna waxaanu doonaynaa inaanu abuurno shaqo aad u badan ka dad badan oo ay ka mid yihiin Boko Haram
ISIS iyo al-shabaab UN-ku waxay ku qiimeeyeen arrintaasi ay keentay shaqo la'aan dadka ku biiraya waa in wax laga qabto waa in la kordhiyaa shaqo abuurka Afrika muhiim ayay xilligan tahay waad ogtahay xogaha iminka la sameeyay dhammaadka qarnigan labadii qof ee kasta ee ku dhalatay adduunka mid ka mid ah ayaa Afrikaan ah taas oo macnaheedu yahay inaanu abuurno shaqooyin badan waxaanu ku qiyaasnay shaqooyinka la rabo in la abuuro 20 milyan guud ahaan Afrika laakiin halka Soomaaliya waxay ka bilaabataa hal qof iyo hal qof oo qof in dadka shaqo loogu abuuro waxaan rajaynaynaa intaas aanu ku guuleysan doono oo aan abuurno 1700 oo shaqooyin waana bilow wax badanna waan ka qaban karnaa arrintaas waa tahay ambassador Soomaaliya ma siisan kaliya gargaar ama lacag ma siisan sidoo kale ciidamadiina waxay labanlaabeen duqeynta ay ku hayaan xarakada al-shabaab arrintaasi maxaad nooga sheegi kartaa oo ah gaar ahaan sida Mareykanku u kordhiyay weerarada ka dhanka xarakada al-shabaab aan marka hore eegno guud ahaan ammaanka qaaradda Afrika markii ugu horeysay ee aan bilaabay inaan ka shaqeeyo qaaradda Afrika iyo Aasiya waa 20 sano ka hor waxaan ku bilaabay barnaamijyo aan ku tababaraynay askar Afrikaana si ay u maareeyaan ammaanka dal kasta oo Afrikaan ah marka haddii aad hadda eegtid guud ahaan tirada askarta nabad ilaalinta Afrika waxa ay ka badan yihiin 60,000 barkoodna waxa ay qayb ka yihiin howlgallada UN-ka badankood waxa tababarta dowladda Mareykanka qaarkoodna tababaro badan ayay hore u siisay haddii aad ku darto midowga Afrika waxay gaarayaan 60% dhammaan ciidamada nabad ilaalinta Afrika marka waxa muhiim ah waxa ay tahay in Afrika ay maanta iyagu ay wax qabsan karaan sida aan qabaanigu halkan Soomaaliya hadafkeenu waxa uu yahay inaan u tababarno oo xaqiiqdii aan kor u qaadno aqoonta ciidamada si ay u keenaan ammaan markaas ayaa la heli karaa horumar dhanka dhaqaalaha ah runtiina kama wada shaqeyn karno oo kaliya dhinacyada ammaanka ee sidoo kale dhinacyada dhaqaalaha ayaanu rabnaa in xoog ka saarno waxaa jira howlo badan oo ammaanka wax looga qabanayo waxaa iyaguna jira ciidan Soomaaliyeed kuwaas oo u taagan inay wax ka qabtaan baahida ammaanka ee dadka Soomaaliyeed mana aha oo kaliya ciidamada Soomaaliyeed ee horumarka sameynaya ee sidoo kale kooxo aan u abaabulnayn qaab qabiil oo ciidamo ah oo ay ku jiraan ciidamo Soomaaliyeed oo Mareykanku uu tababaro kuwaas oo ammaanka suga gaar ahaan waxa tababara qaarkood midowga reer Yurub iyo wadamo kale hadda waxaa jira amni iyo space aan horumar ku sameyn karno dowladda Mareykanku waxay raadinaysaa ammaan laga helo Soomaaliya waana codsi ugu yimid dowladda Soomaaliyeed iyo shacabkeeda marka haddii aad ka fikirtid ama aad u fiirsatid Mareykanku qaabka uu rabo adduunku waa in ciidamada dalkaasi jooga ay helaan awood ay baahidooda ku daboolaan oo ammaankoodana ay ku sameyn karaan waxaa jira dad badan oo khasaar ay ka soo gaarto weerarada ciidamadiina ay qaadaan ciidamada cirka oo kuwa dowladda Soomaaliya ay iskaabaya khasaaraha shacabka ee ka dhasha iyaa loo raacanaya waxyaalo kasta oo loo geysto shacabka waa mid xun waana taa in laga fogaado waxaan sameynaynaa ilaa xad laakiin haddii aad fiiriso ururada argagixisada ee Boko Haram iyo Shabaab waxay u isticmaalaan hadalladaasi qaab ay ku xakameeyaan bulshada si ay halkaasi u sii haystaan waana wax aan wanaagsanayn anaguna waxaan doonaynaa inaan u joojino oo aan ciribtirno markaas dadku waxa ay sii wadan doonaan noloshooda dadka careysan waxa ay faafiyaan oo kaliya caro laakiin qofka faraxsani faa'iidana hela waxa uu sii faafiyaa waxa wanaagsan oo waxaan rabnaa inaan u sameeyno waxa aan rabno oo aan u balaarino waxa wanaagsan oo aan dib u soo celino rajadii shacabka Soomaaliyeed waqti badan ka shaqeynaysa arrimaha siyaasadda iyo umuraha dibadda oo aad qabiir ku tahay wadamo badan oo qaaradda Afrika kamid ah oo aad tagtay meelo badan oo adduunka kamid ah Mareykanka aad ku matashay hadda waxa socda Afghanistan oo kale marka la eego Taliban iyo Mareykanku waxay sameynayaan wada xaajood oo qadar ay ku kulmeen si loo dhameeyo warkaasi nabad ay ugu dhacdo dalka Afghanistan idinku ma taageeraysan in al-shabaab dowladda la hadasho sida Taliban oo la hadlo oo halkaasi lagu dhisto dowlad midnimo qaran anigu waxaan ka soo shaqeeyay dalka Afghanistan wiilkaygu waa askari ka tirsan ciidamada Mareykanka oo ka shaqeynaya dalka Afghanistan waana arrin aan caadi ahayn in wiil iyo aabihiis ay ka shaqeeyaan goob dagaal Soomaaliya ayaa iska leh lagu manhagi karo waxna loo biyeerin karo iyada ayaa wadankeeda Soomaaliya iska leh oo la xisaabtamaysa dadka ay dooratay gaar ahaan
sida loo wajihi karo mustaqbalka maxaa yeelay kani waa dalkeena wax haddii aanu nahay Mareykanka waxaan rabnaa waxa ay tahay inaysan dhicin cid ajnabi ah oo ciyaaraysa door aan wanaagsaneyn oo Soomaaliya waana lagu siinayo bixinayana ujeedooyin aan wanaagsaneyn oo aan dawladda Soomaaliya u adeegin laakiin ujeedkeenu waxa uu yahay in Soomaaliya shacabkeeda aanu taageerno oo ay qaataan lahaanshaha dalkooda taas sidii looga faa'iideysan lahaa ayaan ka shaqeynaynaa sida wax looga qaban karo al-shabaab oo gacan Soomaaliyeed iyo jihayn Soomaaliyeed arintaasi u wajihi karto waxaana loo baahan yahay in la sameeyo wax kasta aan dib u xasuusano warka qaramada midoobay ee ahaa in 70% ay doonayaan shaqo iyagoo leh dano dhanka dhaqaalaha ah waxyaabahaas oo aan rabno inaanu ka shaqeyno qaybta bulshada oo ay kamid yihiin in la kaashado hogaamiyaasha bulshada si arintan wax badan looga qaban lahaa Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay shaqo waxay u baahan yihiin waa horumar dhaqaale waxyaabaha aan rabno inaanu qabanno aan mid cadeeyo taageerada iyo lacagta aan siino Soomaaliya lacagta waxay ka badan tahay dhammaan lacagta ay bixiyaan wadamada kale marka la isku dardaro dhamaantood Turkiga Imaaraadka Qatar Midowga Yurub iyo dalal kale oo dhan Mareykanka ayaa hogaaminaya oo bixiya lacagta ugu badan ee Soomaaliya la siiyo iyo maalgelinteedaba Soomaaliya dhawaan adoo December ka hadlay muqdisho waxa sheegtay Soomaaliya in Mareykanku uu siinayo 900 milyan oo dollarka Mareykanka ah lacagta faraha badan ee aad ku bixisaan Soomaaliya oo aad siisaan dad badan waxay aaminsan yihiin in aan gudaha laga arkin oo xaqiiqda marka la fiiriyo dadka Soomaaliyeed aysan arkin horumar badan oo dhacay lacag fara badan waa bixisaan adduunkana wuu bixinaya arinta inta iska qabalaadahay waa su'aal fiican caawinta aan siino Soomaaliya 2017 waxaa jirtay abaar aad u xun waxaan bixinay lacag ka badan 630 milyan oo dollarka Mareykanka ah waxaan ku bixinay cunno iyo dawo oo aan siinaynay shacabka Soomaaliyeed kaalmadaas oo aan meelo badan gaarsiinay waxa dhici karta in aadan adigu arkin ama aadan dareemin laakiin waan bixinay oo waa la arkay laguma bixin oo kaliya rabitaanka dawladda Mareykanka ee lacagta waxa lagu bixiyay rabitaanka shacabka Mareykanka oo doonayay inay ka qayb qaataan gurmadka bini'aadanimo sanadkan oo kaliya waxaan u bixinay 430 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo ku bixino cunno iyo wixii la mid ah hadda shacabkiina oo ah 13 milyan 4.6 milyan oo kamid ah waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah oo dhanka cunnada ah sida darteed Mareykanka ayaa ugu horeeya cid caawinaysa dadkaas iminka waxaad haysatiin dad dhan 2.5 milyan oo guryo la'aan ah kuwa waddanka gudihiisa ku barkacay kuwaasna waan taageereynaa oo Mareykanku waxa ka qaban doonaa baahiyaha ay qabaan waxay dadkaas u baahan yihiin in la taageero oo laga hormariyo dhinac kasta horumar ma jiri karo haddii waxbarasho aan la helin sida darteed waxaan ka shaqeynaynaa waxbarashada in aanu siino maxaa yeelay waxbarasho la'aan horumar lama gaari karo xitaa tababar la'aan horumar lama gaari karo sida darteed waa labada qayb ee iminka aan doonayno inaanu horumarino haddii aad Afrika u fiirsato 66% waxay wax bartaa gabdhaha sababta waxa iska leh dalka Mareykanka wiilasha waxa ay kor u dhaafeen 83% dhanka waxbarashada dugsiga sare marka la eego 34% ayaa ah gabdhaha gaara oo dhigta dugsiga sare wiilashuna wax ka badan 60% waxaan rabnaa inaanu sii badino deeq bixinta aanu siino wadamada kale deeqaha bixiyana waxaan rabnaa in ku dhowdo ay kordhiyaan lacagaha oo ay arintan dhaqaalaha dadka uga faa'iideeyaan wana soo biiraan badqabka ayaa ujeed kale oo Mareykanku uu leeyahay dawladda Soomaaliya waxay qabatay shaqo aad u muhiim ah waxay kordhisay heerka dhaqaalaha sicir bararka ayay hoos u dhigtay IMF iyo Banka Adduunka ayaa taageeray waxaana la sheegay in aysan shaqadan oo kale ama horumarkan aysan sameyn dawlad kale waana isbedel aan hore loo arkin waana wax weyn oo cajiib ah dhaqaale ahaan waxaana arintan wax badan ka qabtay ra'iisul Soomaaliya dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed Mareykankuna arintan aad ayuu u taageeray waa tahay lacag badan ku bixisaan AMISOM iyo qaramada midoobay shaqada ay Soomaaliya ka hayaan qaramada midoobay iyo midowga Afrika ma ku faraxsantihiin oo ma aragtaan inay shaqo mucjiso ah qabanayaan Mareykanku Soomaaliya waxa uu ka baxay 1990-koodii Soomaaliya xilligaasi waxa ay gashay dagaal sokeeye mana jirin wadan uu dhib ka jiro oo xasiloon darasta siyaasadeed ka jirto wadankaas oo aan saameyn wadamada kale ee dunida 2007 markii aan la shaqeynay midowga Afrika iyo qaramada midoobay
si dalku uu u noqdo waddan degan oo fursad loo siiyo ciidamada Soomaaliya si ammaanka dalkooda ay u sugaan waxaa la qabtay shaqo badan haddaba su'aasha ah AMISOM ma qabat wixii loo igmaday waxaa jira dhinacyo badan oo ay qabatay waxaana jira dhinacyo badan oo ay ka gaabiso aysan qaban waa dhinacyada aan doonayno iminka inaan ka taageerno isbuucii la soo dhaafay Soomaaliya waxaa ka baxay 200 oo ciidamada Burundi ah walina waxaa jooga kuwa ka badan 20,000 oo askari kuwaas oo ka kala tirsan waxay kala duwan muhiimaddu waxay tahay goobaha ay baneynayaan inay la wareegaan ciidamada Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa taasi inay dhici doonto mustaqbalka waan ka shaqeynaynaa and make it a brighter future. That's what we want to do. Okay, thank you, Ryan. Thank you.